ma ku iibsan lahayd $120,000 oo dollarka Mareykanka hal moosa mise aamini lahayd $120,000 oo dollar baa lagu iibiyay hal moosa xilligan aan kula hadlahay ma aaminaysaa in $120,000 oo dollar lagu iibiyay hal xabo moosa oo aysan waxba la socon cusub tahay fadlan subscribe saar rukumo ku dhufaalamka si mar walba ay xogta ku soo gudbinayno sida halkan hoose aad ka eegan kartaanba warbaahinta caalamka ayaa maanta qaada dhigtay in hal moosa lagu iibiyay $120,000 oo dollarka Mareykanka ah dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada Miami mooskan ayaa lagu sajal gareeyay bac waxaana lagu dhajiyay derbiga kadibna waxaa loo soo bandhigay in uu yahay qaab farshaxan ah kaas oo markii dambe lagu iibiyay $120,000 oo dollarka Mareykanka ah xogta ku duuban mooskan ayaa waxay tahay in kaliya laga soo gaday supermarket bac lagu sharooteeyay sida muuqaalka idinka muuqata ama sawirkaba kadibna lagu iibiyay $120,000 oo dollarka Mareykanka ah arrintan ayaa soo jiidatay kumanaan dadweyne ah iyadoo loo falanqeeyay qaabab kala duwan loona soo bandhigay cilmi baadhisyo kala duwan in mooskani uusan qalalaynin inta meeshaasi uu ku dhagan yahay warhana waalna moos hal moos aha $120,000 lagu gadaya adeero nawaale yahay Soomaalida qayladeeda waa naga badatay kaami yeelinade $120,000 iyo hal moosa oo kala darbiga had kulis malaga gaday $120,000 هذا أنا والله نجى والله ما بهني لا إله إلا الله محمد رسول هذا واحد وش يجي سفير قاضو أما هقاضن كم قصبين بل سوا قصة وكذا عضي ضل كطلياني جارهان مقالة ميامي أمور من ماينو سيد عبد الرحمن عبد الشكور علماء الصومالية ده هاوش هذا يسكوضه تسكلون يلا جرب ماينو يلا نسكك فصحنا موياني صون نقل ماينو كوي الأمر مع عبد الرحمن عبد الشكور يسقون ودي ولا أمر ما كدبنا هاوش إلى BBC ده iyo barnaamijta kala gaarsiis ee Xasan Daahir Aweys oo xabsi ku jiro ka soo saartay adeer hawshaada wado murmimayna labadeena inta aynan murankeena sii wadinba gabadh kamid ahayd dadka ka soo qayb galay barnaamijkan ayaa sheegtay in ninkeeda iyo saaxiibkeed ay ku dhajiyeen hadda ka hor darbiga sariirtooda xilliyada kulaylaha iyo qabowga kadibna uu ku dhaganaa muddo dheer halkaasi isaga oo mooskaasi uusan waxba iska bedelin ka waran marka taana mise ka dhacaysa kulay ma filayo inay ka dhaadhici laakiin maadaama ay tiri hawshaada wado taydaan sii wadanaya gabadhan ayaa sheegtay in mooskaasi uu muddo 12 sano ka hor ay ku dhajiyeen iyada iyo ninkeeda gurigooda qaybta sariirta korkeeda una ku dhaganaa xilliyada kulaylka iyo qabowga ilaa haatanna uu ku haysta bac ama qardaas taas oo aysan waxba iska bedelin balse ay maanta la kulan arrintan mucjisada ah ee dunida ku soo korodhay dhageystay adigu ma ka dhacaysa in moos derbi lagu dhajiyay lagu gaday $120,000 oo dollarka Mareykanka kaba soo qaad haddaan derbigan iga dambeeyo ku dhajisto ma igaga gadan lahayd adigoo imaaday qayb farshaxan bise ka dhacaysa qof baa ku gatay waa arrin cajiib ah balse wax walba dunidana ka fiiro wad maadsanta laga yaabaa waxan inuu yahay wax dhici karo waayo biqudrati illaah bayba ku dhici kartaa oo xaqiiqo ah tani haday dhacday xataa rabbi subhanahu wa ta'ala ayaa ka dambe wada murmi mayno sidii Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur iyo culimada Soomaaliyeed هذا هذا كوكو راعي وانا واحد يكره وانا كم ما تصنتهاي إن أدنى سوق بيسحق تنوع عن وكلاء وايو واحد بدن أو كدعة هي الدنيا دنجود كده أيينا نكور من إنك الصومالي ده وحينكم مشغول صنع هاي الرماها سياسة ده وحينكم مشغول صنع هاي إنك نحذينا بس كم ورهنا عالم كم حكوا سكر هاي برينا واحد عضوين لاركو وحيدا فيلين حولها النوع عن وكلاءنا وواحد يكره marka adeer hawshaada wado waan kaaga mahad celinayaa xogtaadi siisay dhabtiina waa wax dhici kara arintani mahadsanid
aad baad u mahadsan tahay in adigu raacdo xogtan kuu soo gudbiyey weliba adoo iga mahadceliyey waana kaga mahadcelinayaa sidaasi iyo si la mid ah waana saxo wax walba oo dunida guudkeeda ka dhacaya waxaa qadaray ama sababteeda iska leh rabbi subxaanahu wa tacaala in culimmadu xataa isku yaacdo inkastoo shaydaan uu ka dambeeyey haddana waa qadar qorray sidaa awgeed waan ku mahadcelinayaa mar labaad haddii aad ku cusub tahay hubaal media fadlan subscribe saar rukumo oo ku dhufa alamka si mar walba aad u hesho xogtaan kusoo gudbinayo ee noocan oo kale ah mahadsanid